waxay ku lafa gureen kagana arrinsadeen mowqifka iyo go'aanka labada xisbi ee xaaladda guud ee dalku maanta ku jiro wuxuuna u dhigan yahay sidan walaalayaal maanta waxaa muuqata in muuse biixi uu u xuub siibtay keligii taliye cagtana saaray waddadii hore loo eeday ee qayrkii iyo jannadii dhagarta ku caanka ahaa ay mareen waxaa muuqata inuu burburiyey dimuqraadiyaddii curdinka ahayd ee la korinayey isla markaana tacab badani shacbigan ka galay waxaa muuqata inuu mijaxaabiyey qarannimadii iyo midnimadii ummadda somalilan oo maanta ku jirta jihawareer siyaasadeed waxaa muuqata weli inuu xintan iyo xifaaltan uu ka dhigay maamulkii dalka loo egmaday isla markaana uu si badheedha iyo kutumashaha u jebiyey dastuurkii iyo xeerarkii dalkani lahaa waxaa maanta aanu cidna caad ka saarayn in hay-adihii iyo aqalladii haybadda qaranka u taagnaa ilaalinta iyo fulinta sharciyada uu si badheedha xididada ugu siibay oo ay noqdeen saylad muuse ka adeegta waxaa maragmadoon ah in muuse maanta cid walba uu dhabarka u soo jeediyey cid kasta oo lexa jeclo kale dalkan wanaagna la rabta iyo horumar iyo jiritaanka somalilan haddii ay tahay xisbiyada qaranka haddii ay tahay beesha caalamka haddii ay tahay waxgaradka culimada iyo ganacsatada somalilan waxaana ugu dambeeyey go'aankii uu ganafka ku riixay ee ergada dhexdhexaadinta oo saddexda xisbo u aqbaleen waxaa maanta taladiisii guracnayd ee keligii ahayd uu dalka ku hogaaminayay keentay inuu ku rido somalilan god madow oo aanay weligeed ka soo waaqsan isla markaana ina dhaxal siisa guuldarro iyo khasaaro tacab khasaar weyn waxaad ogeydeen in muuse isagoo khiyaamooyinkii iyo dabinnadii aan naftiisa dhaafsiisnayn hirgelintooda uu labada gole kaga dhex dhawaaqay inuu furayo ururada siyaasadda ka hor muddaxileedkii axsaabta qaranka kadib markii uu ka takhallusay ee gacantiisa galeen labadii gole qaran iyo maxkamadihii iftiinka qudha ee dadka u baxayey xukuumaddana ka hor taagnaa dibindaabiyada iyo khaladaadka joogtada ah ay ku jirto waxay ahaayeen xisbiyada qaranka tallaabadan uu qaaday waa burburinta xisbiye madax bannaan oo qaran oo isagu u arko caqabad inay ku tahay qorshihiisa keligii talisnimo ee uu ku hami'ey arrimahan oo kale oo uga jeedo inuu indhaha dadka ka jeediyo fashilka kaga dhacay siyaasadda arrimaha dibadda iyo hoggaaminta gudaha inuu dib u riixo doorashooyinkii qorshaysnaa sannadkan ee kala ahaa golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada si uu u helo isna muddo kordhin madaxtooye oo xaaraan ah inuu burburiyo xeer number 14 oo sida uu doono u qorto ugana ansaxsado golayaasha qaranka si uu soo saaro ururo iyo xisbiyo cusub oo xukuumadda taabacsan tallaabooyinkaas oo dhammaystiraya nidaamkiisa keligii talisnimo waa sharci darro in xeerarka loo bedelo dana gaar ah xeer kasta oo khuseeya doorashooyinka
وأن لقيت لجرين أحساب تقرنك يا خصيان وحكبدل كيسو وشرع الضرر وأنا حرام نحر كما أنت الشركة شرائد والصدق لما حسب قرن وهي حلقة يبد بادين تسومالي الآن مرحلة ما أنت أن كتشفره وأركان إن دور الشمال حتويو وحلي جيدي لقصو هرماريو كقبصون تضلك سنة كان قديهيسا لباطن ما دام أموسا كفش المي وقامين تضلك إلا قبطو دور شوي كي قرشيسنا إيو صهريو قولها وكيل لبا إن سيدو كلا لقبطو دور شوي فرصد مدة كوابانا لما يحسبسين أيام ددالك الجده هي بيش عالم أنت وده هذا الصومالي الصومالي لا مدحوين موسى أنا يا محمد بيحي يونس وحن كل نادي سببا وحنون لو ذاقي إن يسقوا أنفلين يسقوا أنفلين ووقت كوبان حفيز كرئيس الوزراء إثيوبيا كل ماي مدحوين فرماتشها صوماليا وحنا لو ذاقي مدحوينه إن رئيس الوزراء كيري وحان بلابيا أو نحدحادين يا وضح الله الصومالي يعني هي الصوماليا هسي الشيء مدحوينه لما وذاقي سفر أي كسو آدين رئيس الوزراء هي فرماتشو تونا سيدا لا sheegay kulan xog waran ayuu xubno u xushay madaxweynuhu kula yeeshay 15 February madaxtooyada kulankaas oo axsaabta qaranka lagu soo marti qaadin kulankaana laga sheegay hindisaha imaatinka ra'iisul wasaaraha Abiy iyo madaxweyne Farmaajo taas oo muran cadho iyo jiha wareer gelisay shacbiga Soomaaliland wararka imaatinka ee ra'iisul wasaaraha iyo Farmaajo hadalla isburinaya ayaa saxaafadda laga sii daayay oo ay sheegeen madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda iyo gudoomiyaha golaha guurtida arrintaasina waxay muujinaysaa inaan ummadan run loo sheegin oo aan looga xog waramin wixii dhacay iyo wax hadda socda midnaba warqad ay xukuumaddu u qortay dawladda Itoobiya oo saxaafadana soo wareysay wafdi ka yimid dalka Itoobiya oo inoo yimid oo sida la filayay sidii jawaabtii xukuumadda Itoobiya midnaba laga wadaagin iyo wixii jawaab la siiyay toona axsaabta qaranka iyo shacbiga Soomaaliland waxa waajib ku ah madaxweynaha inuu arrimahan masiiriga ah si daahfuran uga warramo axsaabta qaranka iyo shacbiga reer Soomaaliland oo mudan aad iyo aad ma hadsantihiin gudoomiyaha ku dari doona intii dhinayd inta tabaysaan madax تي واحد كده كده
والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله المهد سبحانه وتعالى إله محمد. جو قوان كي ورتا كلن كي لبض حسبي الصاكة الحمد لله وقا قدومي عيرها إيدين أخي. أنا قلت هاي وحي وحوي يوان سيارة على كينيا. وقت هنا مدحينها مصبحي مثلا لبض سنة نوضي ديالات بوتشوغي مدحتويدا. لبض سنة واحد كل شقيني موسى inaanu la shaqeyno waanu ku dayno bal collaboration sidii ay wadanka inagu dhacay doorashadaas oo aad iyo aad inagu muhiim ah ayaa ahayd Muuse waa si kasta waa yeelay libaano special labada xisbi isku keeninay qoladan ay wadada dhowr jeer baan ka kicinay meelaha ay qabsadeen iyo ku mahadsan international community way noo yimaadeen go'aan bayna la gaareen waan wada saxiixnay laba jeer baa hadda waxa jabiyay madaxweyne Muuse jabiyay maruu baarlamaanka ilaa mooshinka hay'ad gelinina iyo maruu xubin lagu muransan yahay oo shacabku diidiyo intuu keenay waliba hadda la yiri reer baa diidan waliba waan arki jirnay xubin la diido oo waliba xubinta la diido waxa keen jirtay asxaabta hada ma ahayn inuu madaxweyne xubin u keeno ay controversial noqoto markaasuu reerkan oo wanaag iyo sharaf ka mudan Soomaaliland haddii aan xubintaas celiyo sharciga aan jooday reer baa xanaabaya oo waxayna soo maray taas waxa ku soo maskaxdiisa reer ku qab wax kale ku gufeen ma jiro waxa weeye Muuse dalkiina muran ilaa muran ma ahaan dibadda ayaa wadanka xukunkiisa dibadda waa ka fadhiid buu ka noqday gudihii way ogtina wasaarad qula shaqaysa ma jirto wasaaradda ay lacagta ay soo urureen oo maanta cashuurta halka marinayso ay naga wareegeen baacmishariga oo dhan oo ay u wareegeen Djibouti iyo Boosaaso cashuur taa moojaane wax kaloo maanta wasaarad shaqaynaysa dalkeena farshaxanaysa ma jirto waa ogtina dynamics ba ka socda geeska Afrika yaa ka socda isbedela ka socda isxulufa ka socda qaarada lagu khalriyo lagu tartamaya adduunka maanta waa xeebteen waa reersiga maanta yaa reersigeeni ka bax yaa ka taliya waxa ka taliya farmaajo Djibouti oo ogtiin inta xeebta ka gashay maanta xeebteena waxa ka taliya in yar oo farmaajo ilmaayri ayaa ka wakiila oo kala sharka reersiga loo sameeyay Muuse bixi ما وحي قوديه وبابي هذا الدلكي وخيامه كسر تليفون بالا يصدري طبعا كي بيش الديارات بس كفوه سيدات بقولهم $1,000,000 oo la yiri Soomaaliya waxa la siinayaa marka laga dhaafo diinta ayaa la yiri boqolkiiba 30 baa yeelanaysa laakiin bishuruud la yiri farmaajo la kulmo oo Djibouti kula kulmo message-ka waxa siday ninkii inta siday international communication waanu diidnaano aqoon rigala fadhi anagu gacanta hoos galsan mayna dawladda aan heshiiseen sidii boqol milyan baa loo sheegay هذا ليش يجي واقع هنقليسي شنيا فرتن مرير أيو دلكي سومان لا تكون حراش شنيا فرتن من قوي شو ده شوقي محاسبة مركز مدحوينها رئيس وزراء إثيوبيا فرحة دي وحيو تغيير ودك إلى إمارات وحيو سومان هذه سومان وهي شيء waxay ka codsadeen inuu farmaajo bixiyo oo kaliya magaalada Saaye kaali galin ka bacdina alloore hargeysa la geeyna alloore saasoo sheekada ku tin waa iibsanahay Soomaaliland markaa dabaalday ka dhacay xamad iyo maxay magaalada Saaye meeshii garbahaariyo koonfurdhan alloore markaa soo socday way ragii dadkii mucaaradka ahaa ee ku taagnaan waxay leeyihiin war waa ma intaas ku filayday madashi oo kale iyo horta wuxuu sameeyay khiyaanada cudma uu sameeyay haday maanta jirto golayaal iyo shacbina day uma suurta gasheen waa ninka aan markii loo yeeray oran maxay igu yeerisa waa ninka markii uu soo noqday ummadda uu warramin waxay ku wada hadleen waa ninka markii imaka uu yimid Axmed Shidaan waxay ku wada hadleen cid la wadaagay laba jeer bay gaar isku arkeen صباح لي هبيني مدي نبغى كسر دمايستي بو أفر وسيرو يدوي كار ولا عشان
bataa markaasuu u sheekay wixii laakiin nuxurka lagu sheekeeyey kama hor wuu ka tegey muuse uu ka tegey madaxnimo iyo sharci uu ka tegey hadda waxaan u sheegaynaa hadduu sharci ka tago sharci uu ka tegey waxa uu ku dhaqaaqo annaguna sharci ku kala soconay madaxweyne noqon maayo madaxweyne muuse biixi buu noqonaya hadduu yidhaahdo ucud iyo fuud waan baabiinaya oo sharci aan waqtigaan man geenaya oo shaar baan tolanaya waxaan leenahay madaxweyne rumati hadduu bisha gudaheeda timeska la siiyay ilaa bisha 10keeda haddaa gar qaadan waayo madaxweyne noqon maayo cashuur qaadanayaan ma jirto cashuur wuxuu moodayay abi bixi moodayay cashuur shacab Soomaali bixiye kiradan ka jaraya waxaan ka jarnaa lacagta qaadati ee khaayinka ku tahay waliba waa khaayin mal cudma weyn hayaan laga xushman maanta heeru dabada galiyaan ma jirto heerkoodu wuu arkay Soomaalida way aragtay adduunku wuu arkay waa khaayin afkiisa uu ku saxeen horaan u sheeg marka cirka soo dumiyo anaga afweynaha nagu noqdo doonay afweynaha hudnay waan ugu ridina hadda dalkan abiyus kale waa ku ridina adoo qaawmo baxaysa wallahi billah والسلام عليكم